xildhibaanada maanta soo xaadiray kulanka waxay gaarayeen 92 mudane waxaana kulanka shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya Cabduqaadir Shariif Sheekhouna Maye oo labadiisa garab ay fadhiyaan ku xigeenada koowaad iyo labaad xildhibaanada oo maalmo ka hor loo qaybiyay noqollada hindisa sharciyeedka guddiga shaqaalaha rayidka kaasoo maray akhrintiisa koowaad ayaa ahaa ajandaha maanta sida aadka ay ugu doodeen baarlamaanka koonfur galbeed ugu horreyn gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka koonfur galbeed Soomaaliya Aamano Macalin Cali iyo wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha koonfur galbeed Roble Maxamed ayaa ugu horreyn ka codsaday baarlamaanka koonfur galbeed inay ansixiyaan sharcigan oo muhiim u ah dawladda koonfur galbeed Soomaaliya xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marweyn waxaa sharaf ii ah maanta inaan hortiina soo istaago anigoo ah gabadhii ugu horeysay oo idin hortimaada kuna dhiirata inay idin weydiisato garab anigoo ujeedkaygu yahay inaad noo meel marisaan laba hint sharciyadeed oo kala ah sharciga guddiga shaqaalaha rayidka iyo sharciga xeerka shaqaalaha rayidka mudanayaal laga soo bilaabo markii la aasaasay guddiga shaqaalaha rayidka July 2015 laguna aasaasay xeer ay ansixiyeen golaha wasiirada madaxweynahana uu saxiixay ayaa guddiga soo maray marxalado kala gedisan oo dhan walba ah ayadoo guddiga isu soo bedeleen ilaa 3 gudoomiye oo dhammaantood ku yimid imtixaan furan ayadoo laga duulayo hanaanka daahfuran ee loo siman yahay sida uu qabo sharciga shaqaalaha rayidka waxaa noo qorshaysan inaan shaqaalaysiino ku dhawaad 60 shaqaale oo isugu jira agaasimo guud ee wasaaradaha iyo agaasimo waaxyada iyo howlwadeyno guddiga rayidka shaqaalaha kama baxsana guddiga waa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ay parallel leeyihiin laakiin waa u madax banaan yahay shaqo qorista shaqaalaha dawladda maandadkooda soo ku qoran marka waxaan codsanayaa oo wasiir ahaan bacdama saacaduna iska cariiri tahay in waa wada haysataan shuruucdan kan wasaaradda iyo kii guddigaba waa wada haysataan waxaan codsanayaa in la fududeeyo sidii loo ansixin lahaa intaasi kadib qaar ka mid ah xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa soo jeediyay talooyin iyo qaabka ugu habboon ee loo ansixin karo sharcigan markaas la ka wada nagaay meel raay hal ansixiyo بديدني هل أنسحياي إن حلبان عبد الرشيد أن قدم بي حتى ميل راي دلا هوتيل جيفه ميل راي هوتيل وكينا يقتلنا دافع لقى بحقيقة لسحواي إن سدي برلمان من هكأرجعنا مس حكومة هكأرجعنا دل أولي إن حلبان قوي جري إن برلمان كرسي سلم جري ده إني جود الشغالة ريد كما هالنجل ما دام هو البرن يقبله حياتي وشقدي وشغالة شرعي وشارع إني برلمان عصرنا على كيف بتوري قرنا مجاي دوش مرتوي نمبر 3 قرنا هاي كذا اللي يجي بقى إلى المنصدين intaasi kadib xildhibaanada ayaa hab gacantaaga ku ansixiyay sharciga guddiga shaqaalaha rayidka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana ku dhawaaqay natiijada gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Cabduqaadir Shariif Sheekhouna Maye qaab dhismeedka guddiga shaqaalaha rayidka iyo hindisa sharciyeedka guddigu ku shaqeyn lahaaba markii ay soo gabagabowday doodii mudanayaasha isla markaasna loo codeeyay tirada saaka xildhibaanada codeysay waa 93 xildhibaan 92 xildhibaan waxay ogolaadeen in la ansixiyo halka hal xildhibaan uu diiday wax ka aamusayna ma jiro marka saas darteed wixii ka bilowda maanta oo taariikhdu ay tahay bishii 6 bishii 2 2018 waxaa golaha wakiilada fadhigoodii maanta ay ku ansixiyeen guddiga shaqaalaha rayidka ee dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo sharciyadii iyo hindi sharciyeedkii ay soo gudbeen ay ku shaqeyn lahayn guddigu sidaas ayna ansax u ku yahay Siraaj Sheekh Warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo